Bismillahirrahmanirrahiim. Fiidiyogan waa fiidiyogii labaad. Waxaan doonayaa inaan ku sharaxo qaabka aad u isticmaalaysid dashboardka ama qaybtan dhexda ku jirta oo aad ka helaysid raboodyo kooban. Qaybtan dadka dhan ma wada arki karaan. Haddii aad maamulaha iskoolka tahay ama xoghayaha iskoolka aad tahay ama loogu talagalay inaad aragtid xogtan baad arki kartaa. Dadka qaarkood waxa weeye qof walba userkiisa markuu ku galo waxa laga yaabaa waxyaabo badan ay ka xiran yihiin. Marka qaybtan waa qayb hawl fududeysan. Qaybta marka soo gashid waxaad arkaysaa waxa ugu horeeya fee awaiting payment oo ah lacagihii maaragtay ardada lagu dalacay. Wuxuu ku tusayaa 6 lacagood baa ardada lagu dalacay, 3 baa maaragtay la qabtay, 3 kala dhiman waa 3 to 6 soo ma jeedid. Halkan wuxuu ka tusayaa shaqaalaha maanta la xaadiriyay 4 shaqaalaha baa inoo joogay, 4 way joogeen. Halkan wuxuu ka tusayaa ardaydii maanta joogtay. Wuxuu ku leeyahay 6 arday baa maaragtay inoogu jirta systemka, 5 ka mid ah way joogeen. Marka halkan wuxuu ka tusayaa iyadana graph kooban oo ah lacagihii la ururiyay bishan iyo kharashaadkii baxay bishan aynu ku jirno ku tusayaa. Waliba wuxuu kuu sii tusayaa maalin. Marka saa u jeedid wuxuu kuu tusayaa qaab easy ah. Waxa weeye ardayda lacagta laga ururiyay wuxuu ka dhigayaa cagaar, kharashaadka baxayna wuxuu kaaga dhigayaa guduud. Marka tan ahaan koodii bisha oo kale haddaad dul tagtid aad saa ugu dhufatid waxaad arkaysaa lacagta la qaaday koodii bisha waa $120. Maalinta waxaa la qaaday $100. Maalinta waxaa la qaaday $150. wax kharashana lama isticmaalin. Marka saas u soconaysaa. Maalintana ugu badan lacag aan qaadnay waxaynu qaadnay $550 lacag aan arday ka qaadnay. Sidoo kale waxaa la bixiyay kharash gaaraya $500. Marka sidaas ayaad graafka u arkaysaa maalin kasta wixii aad lacag qaaday iyo wixii ka baxay bisha lagu jiro. Marka bisha haday dhamaato graafkan uu is zero gareynayaa. Waxa bisha dambe marka la gaaro ever buu iska dhigayaa. Marka si bisha dambe daatadii aad gelisay ay hore kaaga soo baxdo. Halkan ku xiga waxa weeye graafkan waxa weeye wuxuu ku tusayaa maaragtay lacagihii iskoolka soo galay si u kala badan yihiin oo graafka. Saa u jeedid waxa weeye 2 lacagood graaf buu inoo soo galiyay 2 group. Waxa weeye waa hay'ado lacag aan ka helnay. Hay'adan oo kale ugu badan waxa weeye waxaan ka helnaa bishii $4800. Saa u jeedid. Marka graafku wuxuu ku tusayaa lacagaha iskoolka soo galay si u kala badan yihiin. Tan ka hooseysana waa qarashaadka iskoolka ka baxay buu ku tusayaa oo graaf si u kala badan yihiin. Saa u jeedid waxa ugu badan kharash aan bixino waa kirada oo ku tusayaa graaf ah. Iyo kharashaadka kala isticmaalnay. Haddii aan hoos uga sii socono dhinacan ku xigta waxa weeye wuxuu ku tusayaa hore waxaan u soo aragnay lacagaha iskoolka soo galay kharash ka baxa oo bilaa. Halkan waxaan ku arkaynaa lacagaha iskoolka soo galay iyo kharashka ka baxa oo sanadla ah. Waxa weeye sanadka dhan wuxuu ku tusayaa oo graaf ah. Hadda bishii ugu horeysay aan ku jirnaa iskoolka August wuxuu ku tusayaa inta la isticmaalay graafka. Marka bil walba graaf kor buu u kacayaa. Bil kastana waa arki kartaa wixii la isticmaalay. Marka sidoo kale halkan waxaa ka arki kartaa iskoolka waqtigu furmay iyo waqtigu dhamaanayo oo bisha July ah. Waxa weeye August inoo furmay wuxuu xirmanayaa July. Intaas waxa weeye lagu guda jiro waxa weeye wixii aad kharash isticmaashid iyo wixii ardayda lacag ka qaadid ama lacag kale ku soo gala halkaas ay ka soo muuqanayaan. Qaybta haddaan inta uga tagno qaybtan ka hooseysa iyadana waxa weeye waa qayb yar hawl fududeysa oo nagu talagalnay maamulayaasha. Waxay kuu fududeynaysaa maaragtay report boqolley ah inaad heshid si fudud u heshid. Haddii aad u baahan tahay inaad heshid ardayda maanta iskoolka joogtay ama macadka ama jaamacadda boqolkiiba inta joogtay inta maqneed boqolley halkan ayaa ka ogaan kartaa. Tusaale ahaan wuxuu ku tusayaa boqolkiiba 66 ardaydu maanta way joogtay bilay waa present. Boqolkiiba waxa weeye 16 way soo daaheen ardayda. Boqolkiiba 16 way maqnaayeen. Marka haddii ardaydu waxaad ogaanaysaa maanta ay maqnaayeen boqolkiiba 50 oo kale iyo wixii la mid ah ardayda iskoolka joogto oo dhan buu ku tusayaa boqolley. Mararkii hore ma aysan dhici jirin boqolley in la helo maaragtay. Marka qaab fudud buu ku tusayaa. Halkan waxa weeye iyadana waxa ku jira qaybtii aad ka ogaanaysay lacagaha oo iyaduna boqolley ah.
wuxuu ku tusayaa boqolay ardayda iskoolka dhigata macadka ama jaamacadda dhigata boqolkiiba inta lacag bixisay boqolkiiba inta lacag lagu leeyahay wuu ku tusayaa saa u jeedid garaafka waxaa ugu hooseeya ardayda lacagta bixisay boqolkiiba 50 ardaydu lacagtii way bixiyeen buu ku yiri bishaan boqolkiiba 33na waxa weeye lacagta qayb bay bixiyeen oo macnaheedu waxa weeye qayb baa lagu leeyahay qaybna way bixiyeen qaybtan ka sareysa waa boqolkiiba inta aanan bixin lacagta waxa weeye boqolkiiba 16 waxa weeye wax lacag ma aysan bixin marka garaafku is dhameystiraya waa boqolkiiba boqol buu noqonayaa 50 iyo marka inta la isku daro marka guud ahaan qaybtan waa boqolay buu ku tusayaa haddii aan inta uga gudbo qaybtaas sare haddaan hoos u socono waxaan arkaynaa qayb kale oo ah lacagihii ardayda laga ururiyay bishaan buu ku tusayaa totalkooda bishaan intaan ku guda jirno wuxuu ku tusayaa ardaydan lacagtan ka qaadnay waa $1,550 baan ardayda ka qaadnay sidoo kale waxaan kharash isticmaalnay waa $700 halkaana wuxuu ka tusayaa ardayda maaragtay iskoolka inoo joogta ama macadka ama jaamacadda totalkoodu intay yihiin tira ahaan buu ku tusayaa arday waxaa inoogu jira 6 arday oo qura haddii aan dhinacaan fiirinana wuxuu ku tusayaa shaqaalaha ama macallimiinta waxa weeye systemka inooga diiwaan gashan ama iskoolka inoo jooga saa u jeedid hal maamulo weeye 2 macallin baa inoo jooga haddii xisaabiyo jiro halkan kaaga soo baxayaa iyo wixii la mid ah fiidiyoda dambe aan ku arki doonaa sida maaragtay shaqaalaha ama macallimiinta loo soo geliyo xogtooda qaabka userada loo siiyo iyo qaybihii kale marka fiidiyogan waxaan uga baxayaa intaas waxa weeye guud ahaan wuxuu ku saabsanaa qaabka u arkaysay dashboardkan oo ah hawl fududays ama xog kooban oo maaragtay ku saabsan iskoolka macadka ama jaamacadda waxa weeye oo kuu fududeynaya waxa weeye hawlahaagii maalinlaha ah haddii ay dhici jirtay inaad riboodiyo maalin kasta maaragtay daawacdid iyo wixii la midaba waxaan inii rajeynayaa inaad fahanteen haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weydeen waadna soo weydiin kartaan waa mahadsantihiin